السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshooyinka Soomaaliyeed ayaa nabad waxaa jiray baaq aan u diray ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed kaas oo si khaas ah ugu socda dhalinyarada maadaama 30 sano ayaama ay ka harsanayd oo hadeerna wali ayaama ay ka harsan tahay waxaanan u diray oo si khaas ah ugu diray baaqaas dalladaha Soomaaliya ka jira oo dhalinyarta ururada jaamacadaha ururada magaranaysa maxalliga oo dhalinyarada kuwaas oo baaqaas ku aadanaa maadaama 30 sano oo ay dhalinta Soomaaliya ku dhacay ku jiday in istiraatiijiyooyinka iyo qaabeyshinka wax lagu waday in la hormariyo hadaba mar walba istiraatiiji aad dejinaysid ama shakhsi ahaan u deji ama bay group u deji ama magaranaysa bay dallad ahaan u deji waxa laga maarmaana inta aan istiraatiijiga aad guda gelin in aad noqotid qof wax akhriya wax daraaseeya marka kadib istiraatiijiga aad guda gashay waayo marka wax badan akhridid waxaad helaysaa xog badan ay helaysaa marka waxaan ugu baaqayaa dhalinta in time-kooda ay wax akhriska in ay maxay hayto ay time ma sameystaan wax akhriyaan oo 24 saac walow kaan 1 hour ba ahaadee inaad leedahay time wax akhris leedahay waayo waxaad helaysaa wax badan